arinta batroolka seismic yaa la sameeyey data la aruuriyey dawladdii tan ka horeysay yaa daatadaas maxaan ku raahdaa company ku siisay companygii daatadii wuu hayaa daatada maxaa lagu samaynayaa marka ilaan dalkii waxaa la yidhi potential waxaa jiri kara oo suurtagal ah inuu dalka leeyahay shiidaal daatadiina waa la hayaa daatadii marka iska haynaynaa marka daatadii ma haynayno daatada waa inaan soo bandhigno oo la sahmiyo waxa daatadu sheegayso inay sax tahay iyo in kale dadka qaylinaya marka qaar waa siyaasiyiinta xanaaqsan wax kale ma aha waxay rabaan dib u dhac inuu dalka ku yimaado sidii 2000 laga bilaabo ilaa hadda ay uga shaqaynayeen dalka inuu dib u dhac ugu yimaado daatada in la soo bandhigo oo dadka interestiga ku ah ama xiiseenaya inay arkaan daatadii oo ay qaataan daatadii ay baaraan haddaba waxaan idiin sheegayaa haddaan la bilaabin waxa weeye in productionkaas wax soo saarkaas uu dib u dhaco yaa xaqiiqo noqonaysa haddase haddaan bilowno haddii la manaafacsado oo sida ay tahay lagu socdo 10 sano yaa batrool soo bixi karaa hadduu dalkan batrool leeyahay marka 20 sano ma sugi karnaa marka macnaha waxa weeye laba nin oo siyaasi ayaa qayliyey oo dadkii qashimeeyey oo been u sheegay haddaan sugno 20 sano ma sugi karnaa marka haddii aan dhagaysano ninkaas weligiis ka qaylinayay haddaan sugno 20 sano ma sugi karno ummadeenna baahi iyo u dhinteen annagana khayraad yaan dul fadhinaa mana yeelino annagu mas-uul ka ah inaan fiirsano wixii aan haysanno ummadeenna in ay ka gaajoodaan qof mas-uul ahna ma samayn karo sidaas wax kale ma aha waa bandhig carweed weeye qofka wuxuu haysto waagii hore waxaa jiri jiray carwooyin yaa jiri jiray bandhig carweed waxaa la soo saari jiray dawladda wax soo saarkeeda iyo khayraadka dalka yaa la soo saari jiray oo lagu faani jiray caalamku waa imaanayaan waxay kaa qaadan karaan waa kaa qaadanayaan waxay ku karaan oo ku kordhinayaan dadka shacabkana waxay ogaanayaan waxa dawladda iyo dadku uu haysto waxa weeye waa bandhig carweed oo shiir haddii wax kale aan haynana waa soo bandhigaynaa waa ku faanaynaa midda kale oo muhiimka waxay tahay Soomaaliya waxaa lagu sheegaa wax negative ah wax aad u xun dadkan waa dad baahan dadkan waa dad isdila dadkan waa dad dhiigga mahaarti iyo nafta aan qiimeen dadkan waa dad burcadbadeed leh dadkan waa dad maxaan ku rahaa dawlad nidaamsan oo sharci leh oo aan lahayn dawlad ma aha dawlad nidaamsan oo corrupt ah weeye intaasoo negative ah la sheegaa war maxaa noo diiday walaalayaalow inaan sheegno waxa kaliya aan haysano oo wanaag inaan ku faanno oo adduunka tusa war dalkaan saad moodaan ma ahay dalkaan khayraad u leeyahay ha loo dhawaado marka annagu ma waxaan ka shaqaynaynaa adduunka inuu noo soo dhawaadaan rabnaa shacabkeena dibadaha jira inuu noo soo dhawaadaan baan rabnaa annaga inaan isu dhawaanaan rabnaa haddee inaan tusno waxa aan hayno dalkeen uu leeyahay taasi waa arrin runtii muhiima oo loo baahan yahay in qof walba uu ku baraarugsanaado haddii wax kale ana shakhsi ah oo laga yaabo in laga fiiriyo waxaan idin caddeynayaa dawladdan anugu madaxweynahan ka ahay dawlad ganacsi maaha dawlad ganacsi maaha waa kala saarnaa waxaa la yidhaah ganacsi iyo public service shaqo qaran iyo ganacsi lisma dhexgelin karo anugu kama shaqayn karo ganacsi maxaa yeelay ummaddan iyo ammaanadooda ii dhiibtay astaan qaran iyo iga dhigtay waxaan ahay madaxweynihii qaranka waa inaan iyagu u shaqeeyo marka waa inaan ka shaqeeyo waxa dadka u wanaagsan waa inaan ammaanadooda ilaaliyo waa sidii aan maxaan ku yiraahdaa barnaamijkeenu ahaa markii doorashadan ku jirnay ammaanada dadka Soomaaliyeed noo dhiibteen inaan u ilaalino cadaaladana u ilaalino cadaaladana u sugno ummadda Soomaaliyeed aan ku baraarujino inay yihiin dad wanaagsan inaan ku baraarujino inay qabkoodii soo celiyaan
inaan ku baraarujino inay walaalo yihiin ee midnimada ku xoog badan yihiin